حديد سلكة قالنا سلكة أدق وأنا نكره وحوها جيد كنت ما مكره حديدي سؤالين كوا هوس مدة مقرنسها دولك إن بدل هوس وجرا واحد عادي قبلي وحنو مركا الكني أما أنو أبورني حرير شعيل يعني من أبورني حرير كات شعيل وحوها مت ددن كيس وهير سري ومقرنسها ددن معالي hase haatee waxaanu ku tashanay inaan u guurino oo aan u magaranaysaa haajirno nolosha dhabta ah inaan nolosha ku midowno oo aan nolosha wadaagno inta nolosha nooga dhimanna aan cimrigeega dhamaysano ayaan go'aan ku gaadhnay balse gacanta waxba iguma jiraan ma haysto waxaan loola tagay reerkoodii ma haysto waxaan dadkoodii مقالنا سالور فريستدي واحد عضي حلقة دادو كلا هدينا بيوريد واو مركا هنين شقيسانا ما هاي واي ما هاي waxaan halin hooyadii iyo aabihi iyo walaalihii la nool oo wali la korinayo oo de anigi ba korin igu socday anigu korin igu socdo ayaan hadana korboodi waxa dhacday marka in de talo lagu akrantay de talo inagu ajiid noo noqotay الله وحنا يلا نقربيني هسه وان على الأضيقي وحنا قوان قاطي إن أنا وذاك قبلي إن أنا هرت مركه هري بس أنا أقول نولان دوناي حبدم بيسه بالهرت أنا اسكو مينيو إدي أكلنا ما تقبله اسكو دي بدي وحنا حسوستا إن أنا جيو لبويل صاحب ضيا أنا جو de gacanta aan wax buuran ku haysanin waa la sheegi karaa hadda aan reerkii tagnay anagoon ma garanaysaa hatta aan odayaal wadanin saddex nin dhalinyaro ku tagnay reerkii laakiin waxaan loo soo dhaweeyay si kal iyo laaba ayaan loo soo dhaweeyay waxaana loo qaabilay si qurux badan aad u qurux badan baan loo qaabilay oo farxad ay ku dheehan tahay muraadkii aan lahaa markaa oo dunida igala qaalisanaa la wali ugu bashari inaan gacanta ku haysto halkii baa hawshii liigu dhameeyey marka inantii waa lagu siiyey inantii waa laysiiyey meherkiina waa lay raaciyey weliba allahu akbar waxa dhacday marka anigoo aad u faraxsan aan ka nimi balse hawshii badh ka midii dhacay way dhacday oo dee ay noo hadhan tahay haddaba waa yihi balse loo noolaan doonaa halkee la aadi doonaa maxaa la cuni doonaa أدعي دحنتي الروك هالكل قريب دونا هالكل ودق بدونا ما مش طلب وحي كم ماري مويدي إن أنا هذا اسمينيو أنا قلت ده هالكل يوت عن هويدي يا أباهي هالكي أن كنا ولا أنا أصوب بندقو إن أنا ده هوشاسي السكر اللي يوم مات أنا قاولي كوري يدي هذا يلا ما أنا هيجي لي لكوري ساعتي أنت هسيوان وينو صورة الشيء وإلهي نحرستي جنا كورابيا أبيو هو نول وأنا أدو سلاميو أدنى أمشي على هاي هي حوشاسي قرب يسوسي يو الله ينتي لنولد ينتي دبدي فوقيت بأي مكان ساني مقبة هذا وحنا نقول نقيس بك هقيس كي كودن نول هالكاسان كل نولين مدو أنكو قياسيو سندو hase ahaatee nolosha aan ku noolayn iyo farxadda aan u haysanay iyo habka aan u noolayn waa hab aanan u malaynaynin inaan u noolaan doono tusaale ahaan farxadda iyo nolosha aan haystay waxa weeye waxaan guriga qolna laga siiyey halkaasaan deganayn waxaana soo martay waqtiga qaarkood aanu hal barkin wadaagaynay ayaan soo martay waqtiga qaar laakiin aanu haysanay inaan ku noolnahay adduunyada meesha u siraysan waxaan ku noolayn farxad waxaan ka heli jiray farxad waxay siin jirtay farxad waxaan la noolaa farxad waxaan ahaa taajir waxay ahayd taajirad
umaanaan haysan nolosha inay cid naga sarayso hase ahaatee damiirkaygii wuxuu markaa isiin waayey inaan yani aan dee la isii koriyo oo noloshan aan dee garanaysaa ku sii jiro waxaan ku tashaday ama aan kula tashaday iyada inaan ka taga jid kale ma furnee tahriibo South Africa la yiraahdo markaa loo tahriibi jiray South Africa way halis badneed iyadii halkii baan kaga tegey hooyey la sii noolayd meel halis badan baan aan tegey oo aad moodo inaanay dad bini aadaniba meesha ku noolayn khatar badan leh inaad warkeeda maqashay malmalin South Africa waan saluugay markaa dib baan usoo noqday markaan dib usoo noqday waxaan soo noqday faamilkii oo intiisii badneed looftay balse gabadhii ay gurigii ku nooshahay iyo intii faamilka hadhay halkii baan noloshii kula wadaagay mar labaad oo lagu soo dhaweeyey gacmo furan hase ahaatee waxaa dhacday in aan saluugay in haddana aniga korriinkaygii una dhammaanin oo weli la korinayo waxaan go-aan ku qaatay markaa inaan sidii aan u samata bixin lahaa naftayda ee aan uga samata bixin lahaa inaan dee waalidkaygii halkii waqtigii waxaan gaadhay anigu aan korin lahaa anigu aan hayn lahaa anigu aan magaranaysaa inaan naftaydana wax taro dee aan ehelkaygana wax u tari lahaa aniga wax taraya ilaa waqtigaas marka waxaan go-aan qaatay markaa inaan jid kale bannaanayn waxaan go-aan qaatay inaan isku tuuro badda waxaan u bareeray dhimashada ayaan u bareeray waxaan u bareeray inaan dhinto amaan meeshaa ka gudbo ayaan u bareeray waxaa dhacday in haddaba aan la noolayn intii aan safarka gelin ciriiri badan oo nagaga imanayey magaranaysaa bannaanka dibadda oo ka baxsanaa annaga seerkalkalan ku jirna ka baxsanaa laakiin nagu imanayey oo dibadda nagaga imanayey culays badan ayaan markaa qaadi kari waayey oo isna dhib igu noqday oo culays igu noqday kadib culayskaasina wuxuu igu keenay mashaakil badan oo fikir iyo in dadku ay moodayaan in loola cadaynayo oo la faraxsanayo ay moodayaan oo raaxaysanayo magaranaysaa laakiin ayna garanayn يعني قدايا ديبك وكوهاي علاش كاس دبد النجيم إنسان أرجع اللي جريه هذا بقى فاللي جرين بنكر هذه أما فرد بنكر هذه مالك بحسن ولا شيء وقرضات كل شيء إنه حلا جبرته يعني إن أد فرد كر هذه سو waxaad culays u arkayso dibadda kaaga imanaya laakiin inaad ka raadayso fudayd ma aha meel adiga ka baxsan ama lamaanahaaga iyo noloshaada ka baxsan waad ka raadaysaa lamaanahaaga waxyaabaha ujeedada aan barnaamijkan aan garanaysaa way intiina ka gudbin culayska bannaanka kaga imanayay bal maxaad nooga sheegi kartaa culayskaasi xaguu ku wajahnaa ma cid kale oo xiriir jacayl dhinaceeda ka yimiba ba dhinacaaga xiriir jacayl oo ka yimiba mise arrin kale oo culays ah oo dhinaca faamiligeeda kaga timiba bal maxay ahayd culayska sheegaysid soo wajah horta culayskaasi wuxuu ahaa asaliyan wuxuu salka ku hayay awlaadna ilaahay bixiya ilaahay waqtigu awlaadda ku siinaya ee saxda aan isaga yaqaana waxaa laga yaabaa ilmaha waqtigaas sawirhay wixii sheegaysid jarana culayskaasi wuxuu salka ku hayay awlaadna ilaahay bixiya ilaahay isagaa dee awood leh wuxuuna og yahay ilaahay xilliga ama waqtiga ku habboon inaad ilmo dhasho way waxa laga yaabaa xilliganba inuu haddii ilmo lagu siiyo uu khatar kugu yahay adiga inuu diintaba khatar ku yahay ama dalkaba uu khatar ku yahay marka ilaahay isagaa garanaya waqtiga laakiin culayskaasi wuxuu ahaa awlaad la'aan buu ahaa waxaan isku dayey marar badan oo dhakhtarra inaan gabadha geeyo laakiin anigu ma arkayn inaan awlaadahay muddo intee leeg bay awlaad la'aantaas ay dadku muddo intee leeg bay qaadatay wallaahi waxay qaadatay waxaan oran karaa muddo ilaa 5 sano ah
ay qaataan filaya ka taasa keentay cadaadis leeyahay laakiin anigu awlaad laan ma ahayn way anigu awlaad waan haystay naxariista iyo kalgacaylka iyo dhool cadaynta iyo farxadda iyo noloshan aan haysto ayaa awlaad ku awlaad ii ahayd oo dadku waxay ii arkayeen inaan awlaad ahaan inaan bila awlaad ahay laakiin anigu marnaba awlaad laan ma ahayn way talaabada qaaday maxay ahayd waa mid noocee ahayd markii cadaadiskaas aad u adkeysan weydii cadaadiska markaan u adkeysan waayay talaabadan qaaday waxay ahayd in aan isku filaado waalidkiina aan ku filaado xilligan waalidkayga caawinayo annaan caawiyo waalidkayga anna isku filaadno anugu aan marka isku filaado marka hore anigu aan isku filaado marka labaadna dee aan waalidkayga iyo ehelkayga ku filaado oo aan noqdo dee nin magaranaysaa aan la korinayn dee korniinkeena ka hoosbaxo ayaa magaranaysaa arrintaasi igu marka ma waxaad qaadatay go'aanka ah inaad gabadhii kala tagtaan oo sidii lagu lahaaya cadaadisku ahaaya ha kala taga ayaad go'aan qaadatay markii aad tahriibtay ee aad ku guulaysatay tahriibkayga kala taga si toosa looma odhanin oo kala taga may dhicin waxa dhacday dareen baa dhacay nooga yimid dibadda laakiin waxa de kala taga may imanin markaasaan go'aan qaatay inaan helo bal fudayd ma garanaysaa culayskan aan ku bedelo fudaydkina waxaan ka dhex arkay inaan halkaa ka heli karo oo badda markaan ka tallaabo wax fudan ka dhex arkay balse markasta sidaa rabto ma noqonayso waxa dhacaya wax aanad jeclayn inay dhacaan wax aad jeceshahay inay dhacaan baad waayeysaa waqtiga qaarkood waxa dhacay markaan badda ka tallaabay inaan gabadhii warqaddii soo siiyey oo aan soo furay balse qaladkaasi yahay qaladkii ugu weynaa noloshada intaa sameeyey umana malaynaya qaladkaas oo kale aan samayn doono waxaan dareemayaa inaan bulshada horteyda ka sheego ilaahayna uu inagu naxariisanayo aniguna aan ku bogsoonayo balse waxa iga sii xanuun badnaa gabadhii markii ay warqaddii soo diray culays badan bay la kulantay loo soo tacsidiyey sidii qof uu dhintay oo kale ee lagu soo tacsidiyey dadku si tacsido ka igu imanayeen waa ku noolaan karowday bulshada dhexdeeda la garanay aan ahay waxaa dhacday markaa in sorry qaaliga ho way waxaa dhacday markaa in ay gabadhii go'aan qaadatay aada u qarad ay ku kaliftay nafta ay nafta ku kaliftay go'aankaasi wuxuu ahaa inay bartii aan maray ay martay si ay nooga badbaado halista ku geedaamana ku hareeraysa oo dadkan ay la kulmayso dee dadka ay la kulmayso iyo dadkii ehelkeedina nolol macaan baa la arkay la socday jawiyadii macaankii aan kuu sheegay baa dhamaado qaraarkii baa bilaabmay maxaan ku guuri waa qaraar iyo qaraar daris ah weli waxay ka dhexeeyaan baan guuri markaa bulshadii bay ciriiriyey dee ay kula noolaan kala weyday marka waxay door biday inaan halkii aan maray ay marto halista u bareedho inaan halista u bareedhay markaa waan ku gaadhay wayna u bareedhay halkii bay martay oo ay ilaahayna ka badbaadiyey balse muddo badan markii ay ka soo wareegtay ilaa qof bini aadan oo qalad sameeyey baan ahay moogta qofku inuu qalad baan sameeyey maaha wax xun anuu cabsi kama qabo laakiin dadku waxay u aqaanaan inay tahay wax qaldan oo maaha inka aniga bulshada soomaaliyeed daawanaysa halkan waxaan la soo fadhiistay waa nolosheedii laakiin waan ku raaxaysanaya ilaahayna ugu naxariisanaya qofkii iyaguna way ku tusaale qaadanaya intaan uga danlaya intaaba waxaa dhacday haddaba noloshii baan haddaba hanaankeydii baan anigu sii waday oo aan sii waday laakiin waxaan la kulmay marba waxaan la kulmaa weji nolol wax aan qurux badnayn oo aan raalli gelinaynin aniga oo wanaag dhiibaya oo farxad bixinaya oo qalbi iyo yani naf huraya ayaa waxaan la kulmay
يعني وحان أنا إيقال من مرولبا وناك بان ديبيا وأن بحنيا جعيل بان ديبيا قلبي بان ديبيا كالجعيل وحول ما هريو هذا نورك هذا وحي وحن كان يا جواب قلدر هنا أنا وحاسير إسلحين وحن إسلحين هل كي أكسوجي إنه هيركش يعني حنا يا وحكرة ما كان هوش عيد قادر يمي أيها سني والعبديو والإلهي ما قلت مني قلب بعض كشيء نيوم الله ماشى الله راعي وحلكي كورتم تليفون برادي تليفون كم صوي علي تليفون كم صوي علي واحد عضي ما كان تليفون كي صوي علي أنا قبل وعي إن هلو كوري السلام عليكم وهبل ها أي سلام تبيك قاضي سيف عبد يسولي شيء عن كل مركها ولا الواحد ربعينات يسامح له وحان أركي وحان أبالكي قاعدين بان لكل مي بلسه وحان كا حسنا يا سامحات بان مرقبني وحان لينا يا أمان جعلها إني حقا واحد صدان واي يسامح هذا بجوابته عن كحلي يدع واي أيها كسيد وناد أيها واحد من نقطي واحد مسكح ذي كوهنا ذا وهبنا عليك بقالي كرواية كبدي واحد يقول لي أذيك أوني قد ضلبني سامحات أيان كسامحي وفهم وينك معني أو غلطك أنت اللي كوسني أيها واحد يسامحني أنا كنت سامحات كأدل بالمحيط تحي إنكم متجتك لبت عاد صهم مرتيبا مرياني ولو تعسيدي سيدي جلس قال جيري وقف كاردنتي هذا مقصد الله هيون كسامح هذا واحد اللي هيون كسامح واي سيدي كل كرتها بالمحل هاي وحي تريوان كسامح هاي ولي وحا هاي كورورة نرشا ضبي عدة لكل ملاهد نرشا ضبي عدة لكل ملاهد سيدا أي كاية لدونت أيها كورورة واي هذا نتيجة قاعد كرواي نرشا ضبي يعني عدة الله كل مدونات كورورته أنا سامحت كنت ها بيتري لكن سويت ما تقرن سافيتري waayahay maxay tiri sababta kulli waan dareemayaa xaalad adag markaad ka sheekeynaysid qisada waan kaaga raali gelinaynaa daawadayaashana waan ka cudur daarayaa waanigi hore u sii dardaarayay lahaa jawiye kala duwan bay geli doonaa marka iyaga laftigooduna way inoogu dul qaadan doonaan xaaladaynu ku sugannahay waan iska sii wadanaynaa ما صدق سوري وين waxay igu tiri waxaan kugu saamaxay ama aan ugu walwala noloshaada sida ay noqon doonto ama cid la kulmi doonto naxariistaadii iyo habdhaqankaagii iyo weygii aad ila noolayd ee aan u ahaa qof aan ciriiri dareemin ama aan ciriiri daris lahayn taajirid baan ahaa farxad baan ku noolaa umaal malayna waxay ga maqlaayeen habdhaqankii aad ila noolayd qofkii aad ahayd eed kula noolayd naftayda sidii aad ii xanaacin jirtay qofnimadaadii baan kugu ilaaway kugu samaxay balse waxaan ka fikirayaa qofka dambe aad la kulmi doontaa sida uu ku la noolaan doono ama sida uu ku la dhaqmi doono yani sida yani ku garan doono kaa heli doonaan ka fikiraa balse haddii bini aadanka calooshooda la itusi lahaa waana arki karin calooshooda haddii la itusi lahaa bitri waxa aan kuu doori lahaa qofkii kuu qalmiyey laakiin ma arki kara calooshooda waa kelmad aad u culus saameynteedana leh waay cabdi curiye anagoo kaaga raali gelinaynaa qisadan dareenka leh ee murugada leh inaanu sii wadwadno kulley dee suugaanyahan baa tahay dhinaca suugaanta erayo kala duwan ka sameeya oo heesihiisana dadku ay dhegaystaan inta badan heesahaaga dadku ha dhegaystaan laakiin qisada ku duugan inta badan ma hayaan bal erayo aad ka samaysay dhacdadan ku soo martay
maxaad nooga xasuusin kartaa ma noo sheegi kartaa dhacdadan horta iyada waan macnayn kari waayey erayo gabadhaas waan markaan macnayn kari waayey waxaan sameeyey heestan oo aan yacnihii ku sheegayo yacnihii cisiga iyo karaamada caadilkeena bixiyo waa mid aan la celin karin iyada maan waxaan u tusaaliyey si aan dee la qiyaasi karaynin xubnaheeda iyo qaabka ilaahay u sameeyey maan macnaynin iyada waxaan ku macneeyey cisiga iyo karaamada caadilkeena bixiyo waa mid aan la celin karin caynadiisa aadmigu colaada iyo afgarashada uu ku kala cod dheeryahay heesta waxaa la dhahaa ka noqon qalbiga cayd qisada gabadhaas waxaan ka sameeyey heestan marna naftaydan ku dardaarayaa iyada marna waxaan ku tilmaamayaa cisi iyo karaamo ilaahay siiyey inaan qofna qof garasa ula ka qaadi karin karaamada iyo cisi aana jirin oo ilaahay cisi karaamo u siiyey aniguna waxa aan isku tilmaamayaa in aan hore u socdo oo aan magaranaysa aan halkaa ka dhaqaaqo kulantideediina waan tilmaamay oo anigi lahaayeen cindiga adigoon ku hayn baa curashada kalgacalkuna cidlo kugu haleeshaa calafkaaga guurkuna hadduu meel ciriiriya la isla hadlaya markaa cisiga iyo karaamada iyadaan la hadlayaa laakiin dadku ma fahmayaan ma garan karaan anaa isla hadlaya waxaa idhi calafkaaga guurkuna hadduu meel ciriiriya kaa galaa calooliyow almar ruux kaleeto ha ka noqon qalbiga cayd waxaad isku dhiirigelinaysaa si aanan u dhimanin dee anigu ama aan dhaawac ii soo gaadhin yani waxaan anaa isbadbaadinayaa waa tilmaan iyo badbaado heesto waa tilmaan dahsoonoo la fahmi karin waxaan u jeedo iyo badbaado anigu aan iskabaya dee oo aan lafteeda aan kabaya cabdicuriya qisadan kulli waa qisada saameynteeda leh oo aan dareemi karo adiga xanuunka ay kugu leedahay inaad ka sheekayso iyo inaad bulshada la wadaagto bal maxaynu midhiya laba ka baran karnaa qisadaas oo aad odhan kartaa noloshayada quruxda badneed waxay u burburtay sidaa iyo sidaa ee dadku ha ka feejignaadaan maadaama barnaamijkan ujeedadiisu ay tahay inay wax ka bartaan dadka okay waxa aan ka odhan karaa midhaa horta intaan midhaa wax ka odhanin iyadana mar labaad saamaxaad baan ka weydiisanaya shacbiga soomaaliyeedna ila way ka mid ahayd saamaxaad baan ka weydiisanaya in magarasa iga saamaxaritaas ilaahayna de horaan ugu weydiistay haddana waan ka weydiisanaya mar saddexaad iyo mar afraadba qisada waxaan odhan karaa ama aan ugu talagalay in laga barto farxadda iyo nolosha dhadhankeeda macaan iyo sida aad rabta inay kuu noqoto ha ka raadinin meel ka baxsan naftaada iyo nafta lamaanahaaga iyo noloshaada meel ka baxsan inaad farxad ka baadi goobto ha ka raadinin cid kale raaligelinteeda cid kale ha raaligelin ha ku raaligelin naftaada yani naftaada ha uga baadi goobin naf ruux kale ku jirta afeeda inaad raaligelin uga hesho taada waa qodobka ugu weyn ee qisada laga qaaday aad iyo aad baad mahadsantahay adaa mudan